Ladies and gentlemen, I'm not going to a house. Next floor, we prefer the aircraft to push back to the chairs. lambarka 45 Abshir Cismaan Ciidan safarkan waxaan ku helay mobile helay mobile ku abadishay dadku ila yaabay waxay dhahayeen yahow mobilkaaga ma haysatid safar muxuu ku daraa bari waa ka soo noqonay kuma aysan fikirin mobile hadaan qaato caraf ina uu yeelo waa iga halaabo iga dhumo laakiin hadda aqoon wax baa soo kororsaday wax ka duwan ayaa soo bartay Soomaaliya baa ka baxay markii ugu horeysay ahayd oo aan ka baxo dal burbur galay oo dhismay oo iscafin iyo horumar ku talaabsaday aan tagnay dadkoodii macnaha wax walba waxaan qaadeen horumareen haddii aan dalkayga waa jeclahay waa dal aan jeclahay laakiin heerka ay gaareen dadka Rwanda jooga anaga inaa gaarno waa wax loo baahan yahay sababtoo ah iyaga qofkii dib geystay kii dalka wax u qabtay intaba isku mid ayaa loo qoray historygooda waxyaabihii ay sameeyeen markii ugu horeysay horta waxaan nasiib u yeelanay inaan ku guuleysano safarkaas oo ah mid dalxiis markiina la waxa ku guuleysanaysaa safar dalkaas Rwanda ah aada ula yaabanaa sababtoo ah Rwanda waxyaabo fara badan ka maqlay taariikheeda fara badan qof walba uu ogyahay sida filaayo YouTube-ka iyo website-yada inta badan waa laga heli karaa markii la yiraahdo Rwanda ku guuleysatay waxa sameeyay inaan xog raadiyo Rwanda iyo xaalka hadda ay ku sugan tahay inaan wax badan ku ogaado waxyaabo fara badan ay aqriyay oo ay kamid tahay in Rwanda isbedel badan uu ka jiro sidoo kale ay kamid tahay wadamada ugu nadaafada badan adduunka sidoo kale dhanka nabadda waxaasna way ii suuroobay sababtoo ah waxa maqli jiray taariikhii dagaalkii inay islaayeen sidoo kale qabiil isku dagaalay waa baxnay wadankii tagnay markaa ka degnay oo aan tagnay magaalada Kigali ee wadankaas Rwanda dabcan waxaan ogaanay in quruxduba ay ka bilaabato nadaafada maxaa yeelay wadankaas aad ayuu u nadaafad badan yahay sidoo kale wadankaas waxa aad ugu badan maxaan ku raahdaa geedaha cagaarka ah oo waxa la yiraahdaa wadankii markaas cagaarka ama wadankii greenka oo waxa arkaysaa wadooyinkooda in markaas uu yaalo cagaar ama geedo aad u tiro badan kuwaasoo lagu qurxiyo wadanka markaan ku leeyahay nadaafada waxaaba ka baranaysaa wadankaas nadaafada sida ay wadanka uga dhigayso wadan qurux badan oo ay dadku jecleystaan runtii waa ilbaxnimo hor leh ku cusub shirkadaha sida gaarka loo leeyahay ama guud ahaan ganacsiga Soomaaliya ama ganacsiyada Soomaaliyeed inay abaalmariyaan howlwadeenadooda ama shaqaalaha ka shaqeeya shirkadooda abaalmarintaas runtii qiimo aad u weyn leh markii qof loo diyaariyo safar dhameystiran khibrad iyo aqoon wax badan oo ka soo faa'iidayo waa abaalmarin aad u weyn waaye dabcan waan dareemi karnaa qof markuu dal cusub tago oo xiise uu qabo ma aragtay wax uu ka soo faa'iidi karo dhan walba taasaan marka waxaan rabaa inaan dhaastaan runtii waxaad ku soo kordhiseen ganacsiga Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed wax loo yaqaano abaalmarin runtii casri ah oo la taaban karo taariikh iyo xusuus iyo dhaxalgalna u noqon karto dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha la yaabka waxa qayb ka ahayd in dagaaladii waxyaabaha laga aruuriyay qof walba oo dhintay magaciisa iyo sawirkiisa in meeshaas ay ku kaydsan tahay oo la aruuriyay sidoo kale waxyaabaha qayb ka ah dharkii meesha ku kaydsan wax walba oo taariikh la leh wadankaas ama dagaalka ka dhacay wuxuu ku kaydsan yahay meeshaas waxyaabaha kale cajiibka waxa qayb ka ah
in wadankaas dagaal ka dhacay dhibaato ka dhacday dhibaatada uu kasoo gudbay wixii uu kasoo gudbay isla markaa meel lagu keediyay haddana lacag laga sameynayo oo ah qof walba meeshaas galays waxa looga baahan yahay inuu lacag bixiyo si uu soo ogaado taariikhdii Rwanda ka dhacday 1994 isla sidoo kale waxyaabaha ugu yaabka badan waxa qayb ka ah oo aniga arkay in horta wadankaas inta uu dagaalka ka maqan yahay ama nabad uu haysto waxa laga joogaa 27 sano meel walba qoran tahay oo xasuusin ah qof walba inuu xasuusto dhibaatadii iyo waxyaabihii dhacay waxa ka joognaa 27 sano Rwanda waxaan u doornay kaliya dalxiis iyo baashaal ma ahayn wuxuu ahaa aqoon kororsi in wax laga soo faa'iideysto qof kasta oo Soomaali ah runtii u baahan yahay Rwanda inuu tago markuu tagaayna u tago qaab ah inuu maaragtay cilmi ahaan iyo taariikh ahaan iyo geography ahaan uu u soo daraasay wadankaas wixii ka dhacay sidii u horumariyeen imaanta meeshay joogaan taas ayaan runtii dhalinyarada aad maaragtay uga soo faa'iideen oo su'aalo badan oo cilmiyeysan isku weydiin safarka lagu jiray waxyaabaha igula yaabka badan sidoo kale oo aan ka filayn wadankaas inaan ka arkayo waxa qayb ka ahayd wadankaas ma lahan wax corruption-ka wadankaas wuxuu ka gaaray meeshii ugu hooseysay oo ah zero corruption inuu ka gaaro sidoo kale dadka Rwandeeska ee wadankaas ku nool hab dhaqankooda waa ka duwan yahay dadka kale dadka aad u xishmeeyaan jidka kale marka la socdo dad aad u hadal badan ma ahan hadii ay dhacdo inay hadlaan xitaa waxay u hadlaan si tartiib ah oo control ka jirto waxa kaaga sii daran wax walba ay qabanayaan oo wadanka ay ku sameynayaan oo isxilqaamaan ayaga markaas soo baxo oo hagaajiya oo maxaan ku rahdaa geedaha beera sidoo kale waa wadan aad u aamusnaan badan oo buuq aan ka jirin malaha anaga buuq geeno oo dadka ugu sheekada badnaa ee wadankaas taga anaga ahayn dadka qaar waxa arkaysa maqaayad kula fadhi dhagoola oo malasa qaabka u sheekaysanayeen laakiin anaga Soomaaliyaana si qeyla u sheekaysanaa wax badan oo aragay oo inaan sameeysan wadankeena dadkeena inay sameeyaan ku qeyroodo waxa kamid iscafinta oo kale in la iscafiyo dadka markay iscafiyaan qof walba qofku wuxuu ku sameeyo ka cafiyo dalka oo dhismaa laakiin hadii qof kale uu qodaysan yahay tilaab ma la qaadi karo marka waxaan Soomaaliya hal iscafiyo si wadankeena u dhisano si dadka Rwanda kale isku cafiyeen wadankooda u dhisteen sidaan u dhifan hal iscafiyo Rwanda dal nadiif ah waliba wadanka kaliya Afrika kaalinta kuwaad ku jiro nadaafada caasimadda Kigali taasoo runtii wax badan qofka Soomaaliga ku beerayso su'aalo badan isweydiina uu leeyahay maxaa inoo diiday annaga dalkeena saan ka dhigano maxaa inoo diiday inaan dalkeena nadiif ka dhigano maxaa inoo diiday inaan hoggaanka iyo siyaasadda dalka iyo in noqoto Rwanda kale marka qofka Soomaaliga damiirka leh jecel dalkiisa runtii waa dal markuu tago ka maseeray uu leeyahay maxaa inagana su'aalo badan isweydiinaa runtii taasna waxay ahayd qayb ka mid ah waxaan u dooranay Rwanda haddaan soo gaarin waxaan joognaa qaybta soo dhaweynta iyo diiwaangelinta saacadana waa 2 saac bar subaxnimo waqtiga Rwanda waxaan geli doonaa hawdka oo maanta meesha aan waqti ku soo qaadan doono waxay noo noqon doontaa maalin aan aad u xiiseeno oo farxad badan sida u jeedaan qaybtan qayb ka mid ah waa National Park Akagera National Park asxaabta qaar kamid ah waxay arkeen gaari weyn oo kor ka fiidan macna gaariga uu dadnaay kood hore gaari weyn waa marka bas weyn waay oo loogu talagalay dadka tourismka talxiiska soo aado gaariga la koraay qof anaga naga mid ah hal area barto marka aslan oo yaqaana oo loo sheegay marka uu tago loo sheegay adduunka dadka wadankaas jooga waxay u jecel yihiin in ay mahad celiso waxa la qofka markay aad ku yimaadid Markozi Jana leh oo ah waa mahadsan tahay aad iyo aad u mahadsan tahay kale qof naga mid ah gaariga koray markii laga furay uu u mahad celiyay waxa dhaawaa mahadsan tahay Markozi Jana marka
ani ahaan markaa ka hadlo gaariga markaa koray waa lee furay waa nala furay DJ-ga ayagaa noo noqdeen dadka gaariga wadeen oo dalxiisayaasha heesaan oo lagu tuuray microphone lagu dhiibaa waa ku heesnay masraxa ka dhignay meesha oo dhan oo lagu heeso safarka markii laga soo tago waxyaabo badan oo iskugu jira inaan wax soo barano inaan maxaa la lahaa cilmi badan aan soo qaadano taariikhda aan soo ogaano sidoo kale waxaa ku jira qaybo fani ah oo inteena badan qof walba laga haayo marba inaan magac sheego balse waxyaabaha qaar waxa qayb ka ahaa markii aan libaaxi ag tagnay mid kamid ah kaamiramanadii nala socday wuxuu sameeyay hurdaa intaan libaax loo tagin markii libaax loo dhawaado libaax waxa la rabaa jaanis aan ku helnay inaan duubno markii la dhahay ka libaax waa kana wuxuu sameeyay fadhi jiifka oo jiife wuxuu isku bedelay inuu istaago oo wareero isla markaa libaaxa inta ka imaad inta u socda wuxuu ilmaamay inaa u soconi libaaxina maanta dhan raadinayna waxaa igala sii la yaab badneed markuu noogu sheekeynayo ninka na waday markaasi meesha xayawaanaadka inuu dhahay maxaan ku dhahdaa xayawaanaadka hadalka way necab yihiin markaasaan dheh dadkooda hadalka way necab yihiin xayawaankana hadalka wuu necab yahay problema meeshaan ka jiro waxaa jira asxaabteena baxdad ka mid xoogaa wadan cusub ay tageen dalabkii wax la dalbanayo ma la yaqaan qofaa lagu daarna waxaa leeyahay ka wax loo keenay way jiraan dad badan oo fanigaa sameeyey inkastoo magacyada aan sheegayn haddana oo dadku daarin hebel waa la ag fadhiisana wax dalbada la dhegeysana hebel wixiisa ii keenay camal samuus dad dalbada samuus ii keenaan laa